24 saac ugu dambeeyay ayaa dawladda hoose xamar waxay qaybo kamid ah wadooyinka caasimadda ka waday olole nadaafadeed oo balaaran kaas oo qashinka iyo carada looga qaadayay laamiyada ay nadaafadu ka socotay. gaadiidka cagaf-cagafta loo yaqaano iyo sidoo kale gaadiidka xambaara booyadaha ayaa ka qayb qaadanayay nadiifinta wadooyinka si loo muujiyo bilicda caasimadda. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer socda ku maray goobaha ay nadaafadu ka socotay iyagoo ku amriyay ganacsatada meheradaha ku leh hareeraha wadooyinka inaan la aqbali doonin wax kasta oo caqabad ku ah bilicda. sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa ganacsatada u sheegayay in la burburin doono dhismooyinka sharci darrada ah. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Shaketi ayaa ka warbixisay ololaha nadaafadeed ee socda. 7 saac bar hadda aan taaganahay waxaan ka shaqeynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda caasimadda gobolka Banaadir iyo bilic soo celinteeda. waxaan qabanay howlo badan, waxaan qabanay magaalada dhan nadaafad ka bilownay, waxaan kaloo qabanay goobihii ku yaalay laamiyada mashbiiriyada oo sharci darrada ahaa dhammaan waa burburinay. waxaan rabnaa inaan sidii caasimadda ay ahaan jirtay dib loogu soo celiyo har iyo habeen sidaan inay ahaato caasimadda qof kasto muwaadin Soomaaliyeed meel kasto sharci darro inuu ku ganacsanin uu aada suuqyada loogu talagalay ganacsiga. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in xasiloonida iyo horumarka caasimadda ka jira ay tahay mid ay caalamka ku dhiiran karaan imaanshiyaha Muqdisho. waxaan ka rabnaa inay bilicda ayaga door ka qaataan. waxaan ka rabnaa qof walba oo hortiisa dukaan ku leh ama hooy ku leh ama hotel ku leh inuu ilaaliyo nadaafadda iyo quruxda. insha Allah waxaa jiri doona sidoo hadda ka hor u soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir wareegto ku saabsan in la ganaaxi doono cid walba oo horteeda inta la nadiifiyo lagu arko qashin. marka waxaan annaga u taaganahay saacaddan ay tahay 9 saac habeenimo inaan laamigi dhaqno iyadoo magaalada dhawaan ay marti gelin doonto wufuud heer caalami ah oo kala duwan. marka ma rabno labadan laami dhexdooda in qashin iyo wasakh lagu yimaado. laamigi waa dhaqnay waa hagaajinay. marka waxaan rabnaa insha Allah in la ilaaliso waana joogteynayna ma noqon doonto wax hadda bilow ah horena waa loo sameyn jiray laakiin caaway dardar xooggan ku qaadnay amnigii arrimaha bulshada gobolkii cidna ka maqnayn amni ahaanna oo arkaysaan inaan hadda maaragtay ku dhex shaqeynayno laamigi. marka aad u mahadsantihiin qof walba waxaan ka codsanaynaa in nagala shaqeeyo. Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.